Ani waa Dhuux Shariif Xasan Dhuux Simba. Waxaan maanta rabaa inaan la wadaago qiso jacayl oo dhab ah misana aad u xanuun badan. Qisadani waa qiso jacayl oo murugo leh, kana mid ah qisooyinka jacaylka ah ee aan rabo inaan idinla wadaago. Waa qiso naga soo gaartay gabar Soomaaliyeed oo ku xirnaan barnaamijkaygani. Sidoo kale waa qiso jacayl ah oo aynaba aan caadi ahayn, waxayna gabadhani jeclaysatay inay nala wadaagto si ay ula taliyaan dhammaan dadka ku xiran channelkeena. Haddaba haddii aad rabto inaad la taliso gabadhani, fadlan marka aad dhammaysato fiidiyowga u reeb aragtidaada iyo talada aad siin lahayd. Waa qiso jacayl oo dhab ah. Waxay ku bilowday waxaan ka helay barnaamijka quruxda badan ee aad nala wadaagtaan, kuwaas oo wax badan naga caawiyo. Waxaan rajeynayaa dhalinyaro fara badan inay ka faa'iideystaan. Ajir iyo xasanaad Allah idinka siiye. Fariinta waa fariin aad u dheer, iga raali noqda walaalayaal. Waxaan rabaa in qiso jacayl dhab ah, taasoo mid aad u xanuun badan ah, igu dhacday oo aan xanuunkeeda wali ilaa hadda aan la jiifo, inaan idinla wadaago. Fadlan hala i caawiyo. Waa qiso jacayl oo dhab ah, ayay tiri. Sida ay u dhacday qisada waxa ay ku bilowday. Waxaanu aaladda internetka iska baranay wiil dhamaadkii 2012 qiyaastii 2 bilood oo ay ka harsan tahay sanadkii 2013. Xilligaas oo aan ku noolaa magaalada Muqdisho, isagana uu ku noolaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayay tiri. Waxay tiri in muddo marka aan wada soconay sawirkaaga ii soo dir ayuu igu yiri. Saan u meermeerinay waan u diray, kuwiisana waa uu ii soo diray bilaa shuruud, ayay tiri. Ballan iyo axdi baanu dhiganay. Wuxuuna ii sii raaciyay in barashadeedu ay ku soo aadan tahay waqti uu safarkayga soo dhow yahay. Daawadayaal, waxaa halkaa ku eg qaybtii koowaad ee qisadan xanuunka badan ee ku dhacday gabadha Soomaaliyeed. Insha Allah part 2 ayaad halkan kala socon doontaa.